ururkani waa ururka adduunka ugu khatarta badan waxaana daaha laga qaaday sanadii 2008 mana aha urur qarsoodiya waxaanay xarumo ku leedahay dhammaan adduunka shaqadeeduna waa daah ka qaadista noolayaal meelo amaba waxyaabo ka baxsan dabeecadda waxa lagu magacaabaa SCP loona soo gaabiyay Secure Contain Protect waxaanay caan ku tahay oo ay soo bandhigtay noolayaal dabeecadda ka baxsan mana raacsana dawlad iyo jaamacad toona ururkani waxay ka kooban yihiin saynisyahano iyo aqoon-yahano kale waxaanay saynisyahanadaasi cilmi baadhisyo iyo tijaabooyin ku sameeya noolayaasha ka baxsan dabeecadda ay soo qabteen waxaanay leedahay website toosa kaas oo ay ku sharaxayaan noolayaasha iyo waxyaabaha kale ee dabeecadda ka baxsan ee ay soo qabtaan waxaanay hay'adani soo shaacabaxday hilaadii 2007 markii uu qof internetka soo geliyay qoraale iyo fiidiyoyo uu kaga hadlayo noole aan hore loo arag wuxuuna ugu magac daray SCP-137 wuxuuna ku tusaaleeyay inuu yahay sida taalada oo kale wuxuuna qoraalkiisa ku sii daray inuu noolahani dad badan uu dilay iminkana cilmi baadhis lagu sameeyay sidaas baanay ku soo shaacabaxday hay'adani waxaanay soo bandhigtay cilmi baadhisyo badan ugu dambayntiina waxay go'aansatay inay samaysato website waxaanay noolayaashaasi u kala saaraan 3 qaybood oo kala ah qaybta koowaad oo la yiraahdo safe qaybta labaad waa euclid iyo qaybta saddexaad oo loo yaqaan kitar qaybta koowaad ee safe waxay ku sheegaan inay yihiin noolayaal aamina oo aan bani aadamka waxyeello u geysan qaybta labaad ee euclid waxay ku calaamadiyeen noolayaal dadka dhibaateeya laakiin dhibaatadoodu kooban tahay cilmi baadhisana lagu sameeyey qaybta ugu dambaysa ee kitar oo ay ku sheegeen inay yihiin noolayaal nolosha bini aadamka khatar ku ah wax cilmi baadhis laguma samayn manay fahmin waxayna ku xidheen qafisyo iyo qolal u gaadha haddaba bal aynu isla eegno qaar ka mida noolayaasha noolaha koowaad SCP-137 laguna magacaabo Sculpture waa noolihii sababta u ahaa inuu soo ifbaxo ururkani wuxuuna ku jiraa kaalinta labaad ee euclid sawirkiisuna waa kan hortiina ka muuqda noolahan qofkii indhaha saara ee ka jeesta amaba indhaha isku qabta wuxuu ka jabinayaa qoorta waxaana intaasi u sii dheer inuu noolahani baabi'iyay dad ku nool tuulo fiidiyowgan ayaa si fiican loogu sharaxaya ee ila daawo Hey, keep your eyes on the fucking sculpture and your safety will be... Holy shit, man, I fucking killed him! Don't blink! It can only move when we blink. Alright, I'm not blinking! Tell me when you're going to blink, so I can keep staring. And I'll do the same, so one of us is staring at all. Fuck you. noolaha kale waa noolaha SCP-169 laguna magacaabo The Shy Guy waana noole ka xishoonaya inuu wejigiisa la arko haddii uu qof isku dayo inuu wejigiisa arko wuu qaylinaya wuxuuna isku dayayaa in uu dilo qofka fiidiyowyadani waa qaar ay duubeen kaamirada qarsoon ee ku dhex taalo qolka uu ku xidhan yahay
SCP-106 waxaa lagu magacaabaa The Old Man, wuxuuna shabahaa qof, jirkiisuna waxa la moodaa inuu qudhmay, wuxuuna cunaa carruurta yaryar, gaar ahaan kuwa 10 sano jira. Markuu doonayo inuu qof cunana, wuxuu isku dayayaa inuu qofka ka cabsiiyo, wuxuuna ku jiraa kaalinta 3aad ee Kitar. wuxuuna ururkani sheegayaa inuu hayo wax ka badan ku noole, waxaanay dad badani u soo daliishadaan jiritaanka noolayaashan aayadda 45 ee suuratu Nuur. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. haddii aad ka mid tahay dadka ka hela muuqaalada noocan oo kala like saar fiidiyowgan, sidoo kale nagu soo biir nalana wadaag faallada aad ka qabto mawduucan. sidoo kale website-ka uu ururkani leeyahay waxaan idiin soo dhigay description-ka.